dabaaldegyada lagu xusayo kowda luuliyo sidoo kale waxa ay ka dhaceen dalka Koonfur Afrika halkaasi oo boqolaal Soomaali ah ay ku xustay magaalada Cape Town xaflad aad u wanaagsan oo ay ugu dabaaldegayaan kowda luuliyo. warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdifataax Cali Sablaale. xafladaad u ballaaran oo lagu maamuusay maalinta xorriyadda kowda luuliyo ay soo cambreen guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa xalay lagu qabtay hoolka Belfelsod ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. munaasabadan oo lagu weyneynayo kowda luuliyo oo macno gaar ah xambaarsan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey ururweynaha saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika Sojaasa. dadka xafladda ka soo qayb galay ayaa waxaa ka muuqatay xamaasad iyo qiiro wadaniyeed iyadoo xuskani si ka duwan sanadii hore looga xusay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. iyadoo dadkii ka soo qayb galay ku soo labisteen calanka Soomaaliya waxaa indhaha soo jiidanayay dhalinyaro wejiga ku soo sharxay calanka Soomaaliya. waxaa munaasabadan ka hadlay marti sharaf aad u fara badan oo ka mid ahaa Nabadoon Ibraahim oo aad uga sheekeeyay taariikhda Soomaaliya gaar ahaan kowda luuliya. si kastaba ha ahaatee xafladani oo ahayd tii ugu ballaarnayd ee abid ka dhacda dalkani Koonfur Afrika ayaa ku soo dhammaatay jawi aad u wanaagsan iyadoo saqdi dhexe ee goorsheegtada saacadda Koonfur Afrika markii ahayd 6 habeenimo la taagay calanka Soomaaliya. Cabdifataax Cali Sablaale, Somali Channel, South Africa.